اللهم جملني بقلب رحيم وعقل حكيم ونفس صبورة، واجعل بسمتي عادة وحديثي عبادة وحياتي سعادة وخاتمتي شهادة. السلام عليكم أصحابتي qaaliga kusoo dhawaada YouTube channelkeena. waa mar kale iyo muuqaal cusub. fadlan haddii aad ku cusub tahay YouTube channelkeena kusoo dhawaad oo ka mid noqo asxaabteena. haddii aad horey noola joogtana waan kaaga mahadcelinayaa. maalin kale iyo routiinkeyga kusoo dhawaada. maanta waxa aan qabta ayaa rabaa inaan idinla wadaago. ugu horreyn meeshaan waxaan ku sameynayaa nadaafadda ayaan ka bilaabayaa. maanta waa maalin routiinkeyga ama subaxeyga ugu horeeya waxa aan qabto. hooyo markii aad tahane howsha keliya kuma eko inaa howl qabato, inaa cunto kariso, intaas way kasii weyn tahay. laakiin qayb yar oo kamida subaxeyga ayaan idinla wadaagayaa. ugu horreyn meeshaan aan kusoo dhaqaaya. mar walba ilaahay ayaa ku mahadsan maalin cusub inuuna siiye, fursad cusub inuuna siiye, subax kale inuu waaga noo barye. alxamdulilah, ilaahay ayaa mahad iskale caafimaadka nagu soo toosiyey aan howsha ku qabsanayno. ilaah waxaan ka baryay qof walba oo xanuunsan inuu caafimaad siiyo, qof walba muraadka uu leeyahay inuu ilaahay u sahlo, qof walba wuxuu ku xaminayo uu ilaahay ku irsaaqo. meeshaan alaabta ayaan kusoo wada dhaqaaya, waan soo nadiifinayaa. kadib waad arki doontaan maalinteed waxa aan qabto. maalin qurux badan ayay ahayd, alxamdulilah. in nicmooyinka uu ilaahay ku siiyo aad mar walba ka mahadcelisid, waxa yarka aad haysato oo aad mar walba ilaahay u mahadceliso waxay ka mid tahay waxyaabaha uu farxadda kuu keenayo. inaad subaxii soo kacdo adigoo caafimaad qabo, intaas ayaan dadka qaar aysan haysanin. dadaa xanuun la soo kacayo, dadaa xanuunsan oo isbitaallo jiifaan, kuwa oksijiin ku xiran yihiin. mar walba waxaa fiican waxa yarka aad haysato inaad ilaahay ugu mahadceliso. intaasna wuu kuu barakeenaya. nolol kale oo ka qurux badan oo intaa filinaysa ka badan waa uu ku siinaya. mar walba waa muhiim inaa ilaahay ugu mahadceliso. even xitaa waxaa kuusii badanayo oo kuusii siyaadaya qanaacada iyo kalsoonida aad naftaada in noloshaada aad ku qabtid. waayo haddii wax yarka aad haysato aad ka mahadcelinin, waxaa ku mashquuliyay mar walba aad fiirinaysaa dadka kale waxay haystaan. laakiin adiga waxaad haysato haddaa mar walba indhahaaga qabtaan oo intaas yarta aad ka mahadcelisid, qanaacadaada iyo farxadaada way badanaysaa. mar walba ilaahay hanaga dhigo kuwa arka nicmooyinka uu siiyey kana mahadceliya. waayo ilaahay wuxuu yidhi lain shakartum laziidanakum, haddaad ii mahadcelisaan waan idin badinayaa. mar walba ilaahay ayaa mahad iskale. intaas kadib maanta maalinteeda nadaafadda ayay ahayd. howshaana waaba howl maalin walba la qabto. kadib qaybtaan ayaan imaaday musqusha. waxaan ku shubay marka hore kaloriin, kadib waxaan ku darayaa umo. waxaan u deynayaa in xoogay 20 daqiiqo camal. kadibna waxaa waay abaalkeeda ka waraabinaa, si fiican aan soo dhaqaaya. intaas kadib waxaan imaaday jikada. meeshaana waxaan rabaa inaan quraac yar aan ku karsado. maanta waxay iga haysaa ama inaga haysaa quraacda inaan karsado shakshuuko. waa yaanyo iyo ukun isku dhex daray, adiga magacee u taqaanaa, aniga magacaas ayaan u naqaanaa. ugu horeyn waxaan kusoo shubay saliidii, wax yaroo basala farxaba waxaa kusoo daray. yaanyada marka hore waa arkayseen biyaa ku kariye, kadibna qobkaa kasoo fiiqaya. anima jecla qolofka yaanyada iyo miraheeda iyo waxaas ma jeclan fahamte. marka hore waxaan dhan kasoo nadiifiye, kadibna waan kusoo shubay. teeda kale waa yartaa isdhiin, waayo dad yaraa ku cunuunaa mafahamte. inta waan ugu filantahay alxamdulilah, ilaahay ayaa mahad iskale. yaanyada si fiican aan u jejebinayaa, waayo yaanyada karis badan ay u baahan tahay. dad badan waxay jiro aaminsan yaanyada inay karis badan aysan rabin oo dabka haddii la saaro isla markiiba ay iska bislaanayso. laakiin yaanyada karis aad u badan ay u baahan tahay, waqti badan inay dabka saarnaato. sidoo kale si fiican aan u jejebinayaa, waayo ma rabo inay hadhow ay ukunta ka dhex muuqato. biyo ayaan ku daray, si fiican aan soo kariyey, inkastoo weli uu karis usii dhiman yahay. waxaan kusoo daray maraq digaag,
xabadana ku darin haaf yar ku daray waxaan kale ku daraa paprika iyo barbarooni shiidan waxaan rabaa inay si fiican u gaduudato soo intaana ku daraya wax kale oo dheereen ku darayo intaana xoogaadana aan kusii huurinaya marka hore si fiican u dhexgelina kadibna waxaan waay waqti fiican siinaan dabka u deynaya si ay iskugu sii bislaadaan kariskeeda ma dhib badna waa uu fudud yahay muhiimada waxaa waaya iyaduna inaad bisleyso haddii waa diyaarsanaa xili kartidna waa 2 minutes waa kasii fiican tahay waa waqti badan ma qaadanayso soo haddana waa soo daboola waxaan dhahay isku huura waa wax yar kadib waxaan rabaa inaan ukuntaan kusoo daro waana arkaysaan hadduu ilaa yiraahdo xoogaa si fiican usoo kartay hadda ukuntii ayaan kusoo daray waxaan rabaa 2 xabo camal inaan ku daro 2 xabo ukun inafay ku tahay hadda waxay ku xirantahay intaa rabtid waa ka badsan kartaa hal xabo isticmaali kartaa soo qiyaasta rabtid ku xiran tahay waxaan kusoo daray waa 2 xabo ukun wixii kala dhan hore ugu daray soo ukunta ayaa si fiican isku dhexgelinaya xoogaa yarna huurina waxaan rabaa inay qaleel noqoto qof walba waxaa waaye qaab u samaystaa dadka qaar waxay jeedaan ayadoo qoyaan inay ka dejiyaan qaarna ay qaleel ka dhigaan inkastoo qaleelka aad ugu macaan tahay in qoyaanka dhan laga dhameeyo balse qof walba joyskiisa xoogaa kadib saanaga diyaar ku tahay xoogaa ay dhexeysay way soo yacni way qalashaa jirtaan intaas kadibna waa ka dejinayaa hadda wixii uu cuni lahaa la iska rabaa haddana waxaan rabaa inaan meeshaan canjeero kusoo dubo canjeero waxaa waa maro badan aan u duwayay soo geliyey waxaan aad u jeclahay markii aan qaso inaan hore ka dubo zaydaysan iiga qamiirin waayo markaas qaar qurux badan ay kuu noqonaya laakiin haddii ay qamiirto ima qurxano dhadhankeeda xitaa wuu isbedelaya soo maanta xoogaa waa iiga qamiirtay waqti badan ee dhulka taale aniga maxuma magacafinayo sideeda ku duwanayna alxamdulilah ilaahay hana barakeeyo qof walba waan haysan ilaahay ha siiyo inta haysatana ilaahay ha barakeeyo qayada dhan qaabkaana kusoo wada duwaya wax yar oo kamid ayaan idin duubay soo alxamdulilah maraba ilaahay ayaa mahadis kale intaas kadib ugu dambeyn sidaan quruxda badan ayay kusoo baxday haddii aad muuqaalka intaa soo gaarto waa kaaga mahad celinaya haddii aad janaalkeena ku cusubtaan ugu soo biiro kamid noqo asxaabteena